Asalaamu calaykum, waa Yuusuf Shire. Isku soo noqod wanaagsan. Ayaamahan waxaan akhrinayay mowduucyo ku saabsan ganacsiga iyo suuqgeynta. Waxaana jeclaysay inaan idinla wadaago aragti suuqgeyn oo uu leeyahay nin la yiraahdo Seth Godin. Ninkan wuxuu leeyahay sirta suuqgeyntu waxa weeye tobanka u horeeya. Waxaad heshaa 10 qof oo ku aaminsan, ku tixgeliya, una baahan waxa aad iibinayso. Haddii ay 10ka qof ka helaan aragtidaada ganacsi, iyaga ayaa kuu sii faafinaya oo 10ka qof halkii qofba 10 qof ayuu la sii wadaagayaa, 10ku boqol ayay la sii wadaagayaan, boqolkuna kun, saasuu suuqgeyntu usi kobcaysaa. Haddii aysan ka helin oo aysan la dhicin adeegaaga iyo aragtidaada ganacsina, waxaa u baahan tahay inaad beddeshid ama aad dib u naqshadaysid. Mowduucu si guud wuxuu uga hadlayaa suuqgeynta iyo sida aragtidu u faafto iyo marxaladaha kala duwan ee ganacsiga cusub uu maro. Qodobkani waxa uu xasaasi u yahay dad badan ayaa ganacsigooda oo weli marxaladii fikirka maraya ka niyad jaba. Maxaa yeelay waxay aamineen in suuqgeyntu ay tahay in aad TV shaqo gelisid, magaalada 100 board suratid oo isku xayeysiisid, taas oo qiimaheeduna aad u badan yahay. Marka ninkan fikirkiisu wuxuu kaa caawinayaa in aad si tartiib ah ku bilowdid suuqgeyntaada oo uu ganacsigaaga iyo macaamiishaadu sidaa ku kobcaan. Maxay kula tahay? Fikirkaaga nagula wadaag qaybta commentiska. Ilaa kulanti dambe oo xiiso leh. Salaamu calaykum.